wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa booqasho ku soo kala bixiyay deegaanada bariga gobolka Mudug. wafdiga ayaa isugu jiray mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug, maamulka degmada Jariiban, maamulka beelaha Balibusle, qurbajo ka heleen xog fiican oo ku aadanayd arrimaha amniga iyo baahida loo qabo in hay'adaha samafal ay deegaanadaasi tagaan. hay'adda United Nations UNDSS hay'ad la yiraahdo nabadgelyada u qaabilsan United Nations-ka socdaalka yagaana waa sanad guuradii socdaalkii hore sanadkii hore hadda oo kale ayaanu magaaladan waxaan ku nimid wafdi ballaaran oo golaha wasiirada iyo maamulka gobolka iyo ismada iyo waxgaradka gobolka u dhashay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada aqoon-yahanka qurbajoogta intuba shirki ballaarna iyo munaasabadii waxaan ku qabanay naatana lagu kulmay dhulkaana adduunka loogu xaqiijiyay inuu noqday dhul burcadbadeed laga sifeeyay dadku dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii hore inay u noqdeen musiibadaas ku soo degteen inay iska sifeeyaan oo iska nadiifiyeen. ilaahay mahadiis waxa ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta dhulka horumar ayaa ka soconayay oo dhinaca wanaagga ayaa lagu socday. horumarkii lagu socday waxa kamid ah mashaariicdii lagu abaalmariyay oo markaa mashaariicdaas ay ahayd $600,000 oo kaabayaasha nolosha oo ay ugu horeyso wadooyinku intooda badneed lagu jiheeyay. markii ku xigtayna waxa lagu daray lacagtaas $140,000. inta waxa way qof jeebka loogu guray 160 ayaa mar in qof jeebka loogu riday lacagtaas ma jidho. wadooyinka waa ogtiin hadda Jariiban wadadii ka bilaabatay dhinaca Balbuslana way socotaa, tii kalena hadday Balbusla ka bilaabanaysaa, tii la bilamaana shaqadeedii waa laga qabtay. mashaariic tababarra oo dhiman iyaguna hadda laga qabanaya. wajiga labaad ee sanadkaanuna mar dhow ayuu bilaabanaya. waxaan kula dardaarmaynaa nabadgelyadii iyo wanaagii ina sidii u adkaysaan in aad ku dadaashaan inaysan meeshaan mar dambe aysan ku soo noqon nabadgelyo xumo wax kastoo sabababa loogama cabsi qabo inay burcadbadeed ku soo noqoto oo taas way tagtay, laakiin inaan nabadgelyo xumo ku soo noqon, inaan dhibaato laga sameyn dadka ehelka iyo deegaanka wixii dhexmara in wada hadal iyo lagu dhameeyo tulnimo iyo ehelnimo iyo wanaag, in dhulka la ilaaliyo, badda in la ilaaliyo, in bariga la ilaaliyo, deegaanka la ilaaliyo. dhulka noloshu waxay ku xiran tahay deegaanka. deegaanku haddii uu baabao ama uu nabaad guuro wax nolol oo inoo haraya lama arko. dhirta inaan la jarin sidii degmadan ama beeshan galdo la yiraahdo Garacad ay caanka uga ahayd in deegaanka la dhowro oo quruxdii Soomaaliya oo ugaarta ahayd dhulka naadirka oo ay ku hadhay ay kamid tahay halkaanu in sidii aad ugu dadaali jireen aad ugu dadaashaan. nuxurka ujeedadayadu waxay ahayd in hay'adaha samafalka oo halkaan ka fog in ay imaan karaan inaanu xaqiijino oo madaxdii ka socotay hay'adaha UN-ka nabadgelyada u qaabilsan inay cadeeyaan inay meeshaanu tahay meel nabadgelyo ah oo UN-kuna imaan karo, hay'adaha caalamiga imaan karaan, ajnabigu imaan karaan. safarka iyaga sida darteed waxa la socda qoliyo iyaguna ganacsato ah oo kalluumaysato ah oo shiinaysa iyaguna inay Oh,
قليلي برملت وينا يا حبيبي صومالي ولا ويا يجعل في صورك لو ما حمومي يا قليلي برملت وينا يا حبيبي صومالي ولا ويا يجعل في صورك لو ما حمومي الوحات كلها كان مليون الوحات عايش سلياو عبد الرحمن وجوه هو هيستا فكاسا له بكل وافقي جنة وجنة لكن دايرة كله زي أول وفوق قديم وفوق قرنوي وأدول جنة لكن دايرة كله الوحات كلها كان مليون الوحات كلها كان مليون وانا ما هراني اجلي وحقوق الله وانا ما هراني اجلي وحقوق الله انت معا ومدان ويا قرني مليون انت laga faa'iideysto badeena badda waxa ku jira aynu cunno bariga xoolaheena aynu cunno khayraadka ku jira badeena iyo barigeena aynu la soo baxno waxaynu cuni lahayn inaga haysanaa aynu la soo baxno waxaynu xiran lahayn sidii dhaqan Soomaaliga dharkeena aleentiga aynu taranno aynu isaga xiranno aynu ku faana dhaqankeena hodanka aynu lahayn khayraadka aynu haysano barwaaqadana aynu ka faa'iideysto ay ku soo booqdeen dhammaanba deegaanadaasi aanu kor ku soo sheegin kuwaas oo laga soo qafaalan jiray badda India iyo badda cas intaba waxa wafdigu ay soo ogaadeen in ay tahay xeebta Garacad meelaha ugu nabadgelyada badan gobolka Mudug xilligan hadda la joogo gudoomiyaha gobolka Mudug mudane Maxamed Yuusuf Jaamac ayaa isaga oo ku sugan xeebta magaalada Garacad waxa uu sheegay inaysan waxba ka jirin ammaan darada lagu sheego Garacad sidoo kalena magaalada Garacad waxa uu sheegay in lagu la dagaalamay burcadbadeedii kadibna laga saaray dadkuna ay si aad u soo dhaweeyeen burcad ka saaridda xeebtaasi oo dadka degan inta badan ay ka shaqaysan jireen waxaana wafdiga xubno ka ahaa saraakiil ka socotay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca ammaanka ee UNDSS waxaana matalaya oo ka socday Master Roman iyo hay'adda isku xirka hay'adaha ee UN OCHA oo uu markaasi matalayay Cabdullaahi Warsame iyo shirkad kalluumaysi oo wadani ah oo la yiraahdo Ocean Organic iyo laba qof oo ajaanib ahaa kuwaasi oo u dhashay dalka Shiinaha kana tirsan shirkadda Ocean Organic oo ay ka socdeen Master Jack iyo Master Mia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت وسند جوردي كواد سند كي هره هذا ومركي هولقل كي بلارا كغيب قادة الحكومة بنتلان يدتك الديجانك هي مراكب تبض بدوين هندية كايلا لسبرعد بدادو أي هل كان قوة حقيقيا إن مقالة قرعد لقنا دي في برعد بداد
dadku maalintaa wixii ka dambaysay waxay u soo jeesteen dibudhis sidii ay ugu samayn lahaayeen noloshooda iyo dhaqankooda iyo kaabayaasha nolosha mashaariicdii horumarinta ee loogu talagalay degmaduna si wanaagsan ayay uga socotaa maanta socdaalka iyagu wuxuu ahaa inaannu xaqiijinno arrintaasu inay sideedii tahay waxaa nala socday wafdi ballaaran oo United Nationka ah hay'adda la yiraahdo UNDSS United Nation Department of Safety and Security si ay u xaqiijiso inay meeshaan tahay meel nabad ah iyo hay'adda UN-ka ee la yiraahdo UN OCHA oo iyaduna ah hay'adda isku xidha hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Puntland labadaas qorshahoodu waxa inay xaqiijiyaan meeshaan dadka ku nool iyo sida ay yihiin iyo xaalkooda iyo in meeshaan ay tahay meel nabad ah una baahan in gargaar laga fuliyo sidoo kale waxaan ugu nimid deegaankan inaanu gaarsiino qorshihii gobolka Mudug ka socday ee ahaa in dadku ay kaabayaasha nolosha ka qayb qaataan aan ugu magac darnay Mudug shalay iyo maanta inay dadku dhistaan dalkooda dalkeena inaga iskale hadaynaan inagu dhisan cid inoo dhisaysa lama arko waxa laga soo bilaabay wadada isku xidha wadaagsin ee gaalkacyo ka soo bilaabatay ilaa iyo gacna fale ilaa iyo garacad sidii loo dhisi lahaa waxaanu socdaal ku sameynay degmada Jiriiman qaybo badan oo kamid ah nin neef ariya ku deeqa nin waxa neef geela ku deeqa nin hara ku deeqa nin suba ku deeqa nin dhaqaale ku deeqa nin iskrogo ku deeqa nin biyo ku deeqa waxaanu soo gaarsiinayna gadaasheeda sida ka muuqata dhalinyarada faraha badan ee noqotay inay dalkooda khayraadkiisa ka faa'iideystaan oo ay badan kala soo baxaan khayraadka iyo barwaaqada ku jidha ee ku dihin inay iyaguna qaaraanka qaybtooda ay ka bixiyaan kalluunka hadda contribution iyo qaaraan wuxuu diyaar u yahay wadada isku xidha gaalkacyo iyo waxa weeyaan garacad sidii loogu dhisi lahaa nin walba oo dhalinyaro ah oo badda jilaabo aata inuu naftiisa waxa uu kula soo baxo ku bixiyo contribution dadka deegaanku inay qaaraan bixiyaan xoolo ay bixiyaan waxa dhaqaale ay bixiyaan si kalluunka garacad looga soo saaro ee maanta dhinacayga taagan qadada looga qadeeyo magaalada waxa weeye gaalkacyo iyo sidoo kale Galdogob dadka gobolka Mudug waxay u soo jeesteen horumar waxay u soo jeesteen dalkooda inay dib u dhistaan magaalada xeebta aanu taaganahay garacad hadda way ilmeynaysaa waxa ay leedahay meedadkaygii waryaa ilaahay yaa imaal gashanaya yaa camiraya yaa dhisaya waryaa iga faa'iideysanaya waryaa qurxinaya ayay leedahay dadka gobolka Mudug ku dhaqan waxa ay dhan yihiin ugu yaraan markiina qof walba inaga naga mid ah hadii uu hal dhagax qaado oo uu halka dhagax sida uu dhigo 1 milyan oo dhagax ayay noqonaysaa kambani iyo dhismo kale uma baahin dekada garacad waa ay dhismaysaa ilaahay idankiis ka aqoolka Mudug iyo degmada Jiriiban waxaan leenahay halkaas sida dekadu uga dhisi lahaydeen idinka ay idin sugaysaa dadka aqoonyahanka ee u dhashay gobolka Mudug waxaan leenahay halkaas waxa garacad idinka ay aqoontiina sugaysaa dadka maalka haysta maalkiina aad ku maalgelinaysaan waxa way wadamada shisheeye sidii hadda Sambiyo ugu dambeysay hal maalin ayaa dadkii gobolka Mudug u dhashay waxa laga dhacay 3 milyan oo dollar 3 milyan oo dollar haday garacad lagama dhaceen dhibaatana ma gaadheen garacad ku soo dhawaada ayaan leenahay waa xeeb lagu dalxiisi karo waa xeeb lagu noolaan karo waa meel xoolihii iyo kalluunkii iyo biyihii iyo dhulkii quruxda badnaa oo beeraha noqon karay intaba ay saaran yihiin laakiin waxay leedahay waxaanahay dad waayay baan u malaynayaa bay leedahay waxaan leenahay dadkii garacad u dhashay garacad waa idin sugaysaa waxay idin ka sugaysaa in aad maalkiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina isku geysaan sidii aad garacad u horumarin lahaydeen sidii waxaan soo aragnay garoonkii diyaaradaha ee dadka deegaanku ay dhiseen ee garacad waxaan soo marnay xeebta dheeraran meel walba ay tahay khayraadka iyo barwaaqada ku taala ku ceegaagan hor waxaan ku soo khatimayaa abwaan baa hore yiri dad barwaaqa ku taagan oo badda uun ka sugaayay inay baahi baxaan waa balaayo adduun inagoo nimcadaas iyo khayraadka iyo kalluunka haysana bariis 3B inaan ku noolaano oo Hindiya laga soo saaray oo kaadi lagu beeray waa ayaan daro waxa aynu cuni karno iyo waxa aynu u baahannahay dhulkeena waa inaynu kala soo baxnaa xoolaheena waa inaan cunaa baddeena waa inaan cunaa dhulkeena waa inaan beer ku beeranaa dharka aynu xiranayna waa inaynu samaysanaa oo hidiya dhaqankeeni iyo alindiga aynu u noqonaa waxaynu nahay ummad khayraadka uu Ilaahay siiyay isku filan oo wax walba isugu filan iyadu waxaan u baahanaa inaan inta ka faa'iideysano qof walba marka inuu